وميل تاريخيا goobaha caynkaas oo kala ah bajiraan buugaag dhameystirna oo laga qoray runtii hadda buugaagta ugu badan buugaagta ugu badan ajaanib ah qortay hadda buug la yiraahdo Untold History waa buug ugu weyn taariikhda Soomaalida Maxamed Ciise Turunji ayaa qoray buug kaloo maxa u qoray taariikhda Muqdisho iyo magaalooyinka xeebaha marka meel uun cutubiyo way ka hadlayaan laakiin si faahfaahsan oo space weyn uga ma hadlayn way marka fiirna Soomaalida iyo taariikhda qarsoon idoo maxaan ka ognahay oo maxaan ka baran karnaa runtii taariikhda qarsoon ummadda Soomaalida ummad kastoo xeeb degan waa ka xadaarad weyn tahay hadda su'aalahan dadka Soomaalida saddex loo qaybiyaa dadka xeebaha degan iyo dadka webiyada degan iyo dadka xoololeyda dadka xoololeyda ahi xadaaradooda aad u weyno kaasoo dad reer guuraa ah oo basic meel aan lahayn dadka webiyaasha ayakana waxay la mid yihiin dadka xoololeyda laakiin ayakuna mar uun bay dhaqdhaqaaqaan laakiin dadka xeebaha degan waa dadka ugu badan ee haddii taariikhda la ilaalinayo because waxay la macaamilayaan ummadahaas kala duwan ee midabada leh ee ka imaanaya badahaas waaweyn dhabarkooda ee halkan imaanaya marka taariikh weyn iyo ummadda Soomaaliyeed ee lahayd laakiin taariikhahaasi waxaa la dhihi karaa waayihii adkaa ee dadka Soomaalida ay soo mareen hadda su'aalahan waxaan arkay buug la yiraahdo liqliqat gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliyeed xilligii kacanka uu qoray 30 sano la qoray wuxuu ka taariikhda Soomaalida uu ka hadlaya dhulkii buntiga dhulkii يعني مساريده waxay aaminsanayeen inuu dhulkan geeska Afrika dhalkaan dhulkan Somaliland iyo Puntland iska galaan sanad inuu ahaa dhulkii buntiga the land of God dhulkii ilaahiyada dhulkii asalkooda ay ka soo farcameen marka hadaadan taariikhdaas ilaalin waa laga qaadan hadda waxaan arkay qoraa Eritrean oo ku faanaya dhulkii buntiga waa dhulkii Eritrea marka buugaas muxuu ku baxayaa marka af Soomaaliya ku qoran yahay marka wuxuu ka hadlayaa su'aalkii ummadan xilliga buntiga dhulkan ay soo degeen Xabshab Suud ee xeebaha Soomaaliya oo Isaylac iyo dhulkan Boosaaso xeebaha badda cas oo dhan ay martay marka taariikh muhiim taariikhdaas daanan la qorin oo la kaydin waa la hilmaamaya way aad weyn Mustafa ma san tahay markaan fiirino barashada taariikhda dalka akhrinta buugaagta qaybaheeda kala duwan isku soo wada duub dhamaantooduba maxaan ka dhaxli karnaa haddii aan barano taariikhda dalka taariikhda dalka waxaan ka dhaxli karnaa laba oo fursad oo qofku siinaya koow fursad jaanib inuu adduunyada aan barno waxaan nahay in adduunyada barno qofka Soomaaliga ah ee madow ee geeska Afrika ka soo jeeda jinsigiisa iyo dhaqankiisa iyo meesha ka yimid iyo dalxiis in adduunyada u furno haddii wadanku nabad noqdo dalxiis meelaha taariikhiga adduunyada waa loo dalxiistaa malaayiin dollar ayaa ka soo xarooda laakiin anagu goobo dalxiis waan lahayn laakiin ama waa burbursan yihiin ama bulshadiiba kuma fahansano marka dalxiisna iyo barasho way u noqonaysaa dadka ajaanibta iyo annagaba way aad ayaad maasan tahay Mustafa ugu dambeyntii gunaanadka barnaamijka ayaa inaga intaasi ah tusaale hal iyo laba akhrinta buugaagteena sooyaalka barashada Soomaaliya iyo xitaa haddii aad barato dhulkaaga waxaas dhihi karaa waxaa si wanaagsan in aad u gudubto taariikhooyinka dalka oo kale waxay ka saacidaysaa dadkaaga in dalkaaga aad difaacatid marka hal runtii Soomaaliya waa mahadsan tahay runtii inaan taariikhda jeclaado akademiyada gudoomiyihii hore akademiyada cilmiga fanka suugaanta maax ayaa igu dhiirigeliyay anoo yar ayaan buugaagtiis akhri jiray buug leeyahay horta bara dalkaaga degmooyinka marka muhiim ah tahay qofku inuu taariikhda barto siiba taariikhda dalkiisa wadankaaga marka taqaanida adduunyada kale wax bari kartaa laakiin dalkaaga hadaadan garanin wax waaye aqoon guud afqalaad ma aqoontu wixii la dhihi jiray waaye aqoontu marka wadankaaga ka dheregtida adduunyada kalena ku qiimeynaysa ku baranaysa marka wax u soo jeedi lahaa qof kaste oo taariikhda xiiseeya inuu si gooni ah u barto wadankiisa iyo dalkiisa iyo adduunyadaba Soomaaliya biskali in lagu ekaado anigu kuma tali lahayn marka waa mahadsantii aad ayaad maasan tahay Mustafa ugu dambeyntii barnaamijka madasha dhalinyarada وانا كنت سيداو ديال برامج كحيدي soo saartay aniga Sumaya Cabdiqaadir telefishinka qaranka Soomaaliyeed xarunta dhexe magaalada Muqdisho waad ku daawaneyseen toddobaadka dambe barnaamij caan kala mid ah Simran oo idin la isma dhaafnay sidaas iyo nabadina